Okay, bismillah. Magacaygu waxa weeye Maxamed Usmaan Axmed. Waxaan ahay senior lecturer ka shaqeeya jaamacado kala duwan. Koorskeena aan doonayna maanta inaan ka hadalno ama topic maanta aan doonayna inaan soo geliyo. Midka koobaad koorskani magaca guud ee dalada uu ku jiro ama groupka uu ka tirsan yahay waxa loo yaqaanaa social science. faculty guudna waxa la yiraahdaa Faculty of Social Science laakiin department ahaan waxa weeyaan waa Department of the Development Studies weeyaan haddii aan soo qaato koorskan oo aan yara taabto history ahaan iyo eriyooyinka inta badan ku soo bilaabmay koorskan waxa la soo bilaabay xilliyada lagu ixtiraaqa ama maxaa la yiraahdaa inuu ku tilmaano 1960kii xilligaas oo ixtiraaqeen group of economists oo for example oo kale ay ku jireen in loo yaqaano W Rostow oo kale oo is economistia ninka loo isagana loo yaqaano Marshall Planning oo keenay qorshaha ay ku horumareen wadamada loo yaqaano reer Europe maxaa la yiraahdaa especially in the United States iyo development maanta ay gaareen ku gaareen laakiin waxa si official oo koorskan loo istidigriyay oo jaamacadaha bilaabeen oo la bartay xilliyadii 1999kii ayaaba uu noqday mid active ah oo maxaa la yiraahdaa meelo badan iyo maxaa la yiraahdaa jaamacado badan ay bixiyeen waxa kooraskani uu loogu talagalay ama needska iyo baahida loo qabay loo keenay oo ixtiraaqan waxa weeyaan kooraskan wuxuu taabanayaa waxa loo yaqaanaa multi maxaa taski ama waxa loo yaqaanaa maxaa the multi area ayaa uu focus gareynaya definition ahaan kooraskan development studies waxa la yiraahdaa waa barashada la baranayo cilmiga politicalka waa barashada la baranayo cilmiga maxaa socialka waa barashada la baranayo cilmiga economiga definition ahaan waxa la yiraahdaa waa triangle ka sheekeynaya siyaasadii uu baranaya ardayga baranaya wuxuu baranayaa maxaa la yiraahdaa socialki iyo maxaa social worker uu noqdo bulshada uu shaqeeyo wuxuu baranayaa maxaa la yiraahdaa economics ayuu baranaya inta oo field oo kala duwan bari takhasus ahaan iyo area uu ka shaqeynayna inta uu ka shaqeyn kara maxaa la yiraahdaa marka la eegayo ardayga koorskan ka baxa ama koorskan bartay markii la eegayo baahida hadaba loo qabo waxa weeyaan koorskan uu cusub yahay koorsida cusub ee imika ama maxaa cilmiga cusub ee imika la barto ayaa ku jira qarnigan ugu dambeeyay imika ku jirno baahida loo qabo waxa weeyaan wadan ahaan markaynu ka sheekayno Soomaaliland hadaynu ku apply gareyno muhiimad aanu leenahay waxa weeyaan wadankeenu development buu baahan yahay development kan u baahanay waxaan u baahanahay in terms of the social development in terms of the political development in terms of the economic development intaba waynu u baahanahay maanta waxaan doonaynaa inuu soo saarno ay halkan aynu ugu yeerno ardaydii iyo maxaa la yiraahdaa mustaqbalkii tomorrow kuwaas oo ahaan iyo kuwa la doonayay inay maxaa la yiraahdaa berri wadankan wax ka bedelaan in terms of development in terms of maxaa economically in terms of the social marka la eegayo muhiimadda marka loo baahan yahay waxa weeyaan maadaama aynu ku jirno xaalad development wadankeenu imika emergency iyo waqtiyadii hore iyo maxaa dagaaladu ka soo kabtay hadaan doonayna inaan sameeyno development state aad buu muhiim u yahay waana applicable hadda inay istidigreyaan oo ay bartaan ardayda imika fiilkan maxaa la yiraahdaa graduate-ka ay ka soo baxay secondary-ga aad baan ugu soo dhaweynayaa meelo badan oo ka anfici doona saan qabna hadii ay koorskan bartaan waxa la yiraahdaa inta badan focuska la saarxay hay'adaha iyo meelahaas uu ka shaqeeya laakiin waxaan u sheegayaa arday kasta koorskan bartaa inuu ka shaqeyn karo area of the government area of the NGO area meel kasta uu ka shaqeynaya waayo career-ka looga baahan yahay marka la eegayo development studies-ka magacyada loo yaqaan ama focuska loo saaro waxa loo yaqaanaa research and development macna ardayga kan bartaa meesha uu bari tagaya ama area-da uu ka shaqeynayo career-kiisa la tagaya waxa weeyaan tomorrow you will be a researcher inaad noqoto qof cilmi baadhis badan sameynaya problems badan ama dhibaatooyin badan oo wadanka ka jirana la rajaynayo inuu ka fargareeyo kadibna maxaa la yiraahdaa because of cilmiga marka saddex loo qaybiyo laba meelood waxa weeyaan waa cilmi baadhis ama waa research marka la soo gaaro level-kan loo yaqaan muxuu ahaayay universities-ka ama maxaa higher education-ka markii loo eegayno taasi waa muhiimadda koowaad ee maxaa la yiraahdaa inuu doonayno hadaba yaa suitable ku ah ardayga suitable-ka ku ah ma la doonayo fiilkan inuu bartaa inkastoo ay ku xiran tahay interest-ka iyo qofku wuxuu interest gareynayo ardaygu wuxuu baran karaa waxyaabaha uu interest gareynayo ama maxaa qofku wuxuu interest gareynayo ayuu guul iyo success ka gaaraa laakiin markii uu eegano in academically ama markii uu eegano qofka la doonayo inuu maxaa raday halkan yimaado markii qualifications iyo shahaadooyinkiisa eegayno artist-ka inta badan ee maxaa la yiraahdaa ay ka soo qalin jibiyay geography iyo history-ga ayaaba inta badan halkan applicable ku ah markii uu eegayno xagga kale ardaygu haddii uu ka soo baxay hataa even science haddii uu ka soo baxay waayo economic-iba sector ah oo course-kan wuxuu more related leeyahay economic ay abu related leeyahay maadaama economic uu related leeyahayna
waxa weeyaan ardayga sayniska ka soo baxay hada uu baran karaa because of magacaad halkan ka dhadhaminayso fakalkan waxa uu hoos tagaa dalada loo yaqaan social science oo social science oo la isku yiraahdo development studies oo kale political science ka project planning and management ga public administration ka dhamaan waxyaabahaas oo waxa weeyaan waxyaabaha maxaa la yiraahdaa dalada loo bixiyo social science ka loogu talagalay inta badan waxa loogu talagalay ujeedada loo leeyahay waxa weeyaan wadamada soo koreeya loo yaqaan third world ka ama maxaa la yiraahdaa qaaradan iyo wadamadan aan ku noolahay ayaa loogu talagalay sidii development loogu sameyn lahaa inta badan waxa la yiri waxa lagu study greenaya lagu baranaya examples iyo process ay ku horumareen wadamada loo yaqaan developing countries ka ama advanced ku si ay kadibna maxaa la yiraahdaa inaguna aynu u ahaana qaar gaara ama maxaa la yiraahdaa meelaha ay gaadheen iyo advanced ka industrialist ka ay ku guuleysteen kadibna ay ku guuleysan marka la eegayo qodobka kale waxa weeyaan ardayga course kan barta ay study gareeya meelaha ugu muhiimsan horta ka shaqeynaya waxa weeyaan waa project based markastaba oo project la handle gareynayo markastoo la doonayna mashaariic la develop gareeyo markastoo la doonayna mashaariic la sameeyo isaga ayaabay tahay career planningkiisi iyo halkii ku wanaagsaneyd inuu ka shaqeeyo waxa kale oo ka shaqeynayo muhiim ardayga course kan barta waxa uu noqonayaa researcher bu tomorrow noqonaya isaga ayaa maxaa la yiraahdaa studyada iyo research iyo problemska la doonayo wadanka maxaa isaga ayaa study gareynaya haday noqoto in maxaa capacity building in dawladda loo sameeyo hadii ay noqoto maxaa la yiraahdaa in loo sameeyo so many things kale waxyaabahaas oo dhan waxa weyn waxyaabaha ugu muhiimsan oo focus ka saarayo waayo research ka wadankeena maanta inta oo problem baa yaala maadaama aan recovery ka soo sameeyay oo civil war iyo dagaalaan ka soo kufo garoonay hadda waxaan isku diyaarinaa inta problem ee wadanka yaala sidii solution iyo xal loogu heli lahaa cidda develop gareynaysa cidda loo baahan yahay inay ka shaqeyso area-daas ee ugu muhiimsan waxa weeyaan inta badan studyada iyo researchada inta badan ardayda ka macnaha inta badan maxaa la yiraahdaa ka shaqeynaysa waxa weeyaan waa arday ka soo graduate gareeya development study iyo arday ka soo graduate gareeya statistics meelaha ay suitable ku yihiin iyo positionska inta badan marka ka shaqeynay institutionskana inta badan meelaha ay career planning kooda iyo aqoonta barteen la tagayaan waxa kamid ah hadii example soo qaadno xagga wasaaradaha iyo dawladda oo kale wasaaradeena loo yaqaan national planning and development wasaaradda qorsheynta qaranka waa meelaha uu suitable ku yahay inuu ka shaqeeyo arday ka soo baxay development study markuu leeyahay wuxuu ka shaqeynayaa NGO-yada kuwa doonaya inay maxaa la yiraahdaa emergency-ga iyo caawimooyinka iyo foreign arka u sameeynaya wadanka ay develop gareynaya marka la eegayo marka very important to ama muhiim buu u yahay course-kani ardaydu inay study gareeyaan aad buu noogu cusub yahay waxa la yiraahdaa wixii cusub caalamka ayaa jecel wadanka midkan wuxuu doonayaa in aad loo develop gareeyo wadankan wuxuu diyaar yahay inuu develop maxaa la yiraahdaa gaaro dana ardayda waxaan ku leeyahay soo graduate gareynaysa welcome ku soo dhawaada waxaan qabaa inaydaan markastaba maxaa la yiraahdaa aad ku faa'iideysaan markastaba maxaa la yiraahdaa naftiina iyo ummadan iyo dalkan baynad uga faa'iideyn doontaan baan halkan qabaa master ahaan oo kale marka development studies ka dhamayso waxa ku banaan inta oo course kale ayaad ku diyaarin kartaa shahaadooyinka ka dambeeya waxaad qaadan kartaa maxaa la siyaasi baad noqon kartaa waxaad ku diyaarin kartaa maxaa la economic iyo dhaqaalaha baad ku diyaarin kartaa waxaad ku diyaarin kartaa maxaa la social worker baad noqon kartaa community development qof maxaa la bulshada u shaqeeya oo si maxaa la yiraahdaa voluntary ugu shaqeeya oo maxaa la yiraahdaa sida for example kale waxaan soo qaadanayaa website-kan aad iyo aad u mahadsan yihiin sanay u shaqeynayaan macallimiinta iyo consultants ka ardayda ugu sameynayaan macnaha waxay ku suntan yihiin ama waxay example yihiin waxa loo yaqaan maxaa la yiraahdaa social worker macnaha example social worker ku waa people work like this one oo kale u shaqeynaya loo yaqaan social worker markii noo eegno marka eriyooyinkaas ugu muhiimsan oo focus ka saaraya magacyada loo yaqaan course-kan wadamadu way ku kala duwan yihiin course-kan waxa loo yaqaan imika wadamada East Africa especially in Uganda oo kale oo maxaa eriyooyinkan ka soo graduate gareeyay ama jaamacadda master's degree gaan kaga soo qaatay course-kan waxa uu yaqaanaan development studies bay u yaqaanaan for example oo kale Kenya oo kale course-kan waxa uu yaqaanaan community development ama CD bay u yaqaanaan waayo community development isku waxa weeyaan waa sector kamid ah maxaa la yiraahdaa course-kan markaad course-kan dhiganaysid degree-gaaga waxa laga yaabaa laba course ama saddex course oo community development inaad ku qaadato ujeedada loo sameeyo course-kan su'aasha la doonayo inuu ka jawaabo ardayga dhiganaya development studies waxa weeyaan afar area ayaa focus ka saaraya marka koobaad agricultural development marka koobaad waxaad focus ka saaraysaa ama develop gareynaysaa waxa weeyaan agricultural development how wadankeena loo develop gareynaya agriculture area-di qodobka labaad waxaanu focus ka saaraynaa seebaa loo develop gareynaya social development waxa weeyaan waa community development weeyaan bulshada meelo badan baa laga develop gareyn karaa in terms of the education in terms of the health in terms of the sanitation meelahaas oo dhan baa laga develop gareyn karaa markii loo eego waxa kale oo focus ka saaraya waxa loo yaqaan economic development baa isaguna kamid ah waa sector-ka kale isagana la doonayo in la develop gareeyo isagana focus ka saarayo aad baan idin soo dhaweynayaa aad baan idin salaamayaa ku soo dhawaada faculty of social science especially department of the development studies thank you so much